iyadoo dhawaan xisbiga mucaaradka wadan uu dawladda dhexe Soomaaliland uu ku dhaliilay doorka ay ku lahayd horumarka gobolka Saaxil isla markaana uu gobolku tabayo waajibaadkii dawladda dhexe maadaama gobolka Saaxil dhaqaalaha dalka boqolkiiba 11 uu ka soo xaroodo ayaa waxa saaka dhaliilahaasi ka jawaabay xogayaha gobolka Saaxil Saacad Ciise Cumar oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa waxaanu beeniyay isla markaana uu dawladda dhexe ka difaacay dhaliilahaasi uu xukuumadda dhexe u soo jeediyay xogayaha duulistii hawada xisbiga wadani xogayaha gobolka Saaxil Saacad Ciise Cumar ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda dhexe ay ku guuleysatay dhamaystirka baahiyaadka bulshada ee guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka Saaxil waxyaabaha uu ninkaasi ka hadlay waxa kamid ah sida aad sheegtay dakhligaas oo sheegay in boqolkiiba 11 uu ka soo xiroodo gobolka Saaxil waxaan ku raahday dawladda dhexena lacagta ay ku soo celisay ay ka yar tahay dakhliga marka loo eego dakhliga gobolka Saaxil soo saaro marka hore anigu mid uga jawaabay su'aalaha marka hore dakhligaas uu sheegay in gobolka Saaxil uu ka soo xiroodo anaga faham baan ku runtii waxay noo tahay kalsooni iyo wax qabad bay noo tahay in gobolka Saaxil uu dakhli inta leeg soo saaro sidoo kale inta uu sheegay inaan dawladda dhexe ku soo celin xog baan ka hayn dawladda dhexe waxay ku soo celisaa dakhli fiican bay ku soo celisaa gobolka Saaxil miisaaniyadda ama kabka ay wasaaradda arrimaha gudaha ku soo celiso gobolkan waxa weeye waa mid aad u fiican waxaana jirta gobolada sida uu sheegay goboladu way soo kala wax soo saar badan yihiin marka dawladda dhexe wadanka oo dhan ka mas'uul tahay macnaheedu noqon maayo gobolka sanaaga soo saara 0.1 iyo gobolka Saaxil soo saara in ka badan 50 in ay kala adeegoodu xaq dawladda dhexe u qabanayso oo kala badanayo macnaheedu maaha taasi mas'uuliyad maaha dawladda dhexe waxay mas'uul ka tahay wadanka oo dhan waxay u qaybinaysaa waxay wada gaarsiinaysaa adeegii dawladda dhexe waxa la wada gaarsiinaya dhammaan gobolada kuwa waxa yar soo saara iyo kuwa waxa badan soo saara aad baad u mahadsan tahay runtii waxyaabaha uu ka hadlay hadaan mid isu taago marka hore aan ku horeeyo biyaha waxaanu nahay gobolka Saaxil xaruntiisa Berbera waxa kamid tahay meelaha ku caba ay qayb kamid ah biyaha oo beersan fiican oo 30% abafa biyo ama 30% ka badan gravity waxa weeye waa gobolkii mashaariicdii ugu badnaa ee la geliyay dhinaca biyaha ee horumarina sanadkii imkayna dhaafay 2018 goobjoogna waa ka ahay furitaankii xafladda sidoo kale waa gobolka oo ugu qiimaha jaban xagga biyaha mitir kuubaha waxa lagu cabaa 9,000 oo shilin meel kale oo la siiyo 9,000 oo shilin halka mitir kuuba Somaliland ma jirto wada ogtiin foostada waxa laga yaabaa 30 dhulka qaar lagu cabo leerka oo isagoo ka hadlay Berbera waa meesha uu Somaliland ugu leerka jaban leh 0.4 leerka Berbera uu hoos maray marka 0.4 meel uu leerku Somaliland yahay ma jirto runtii shirkad baa gacanta ku haysa gaara waxaana shirkadda mas'uulka ah oo maamula nin odaya oo gobolka halkan ka soo noqday maayir iyo barasaab labadaba soo maray oo runtii xog ku filan waxa ay Berbera u baahan tahay iyo halka ay uga baahan tahay labadaba garanaya dhinaca leerka ayaa gacanta ku haya aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa shirkadaas leerka maamusha caafimaadka runtii waxa la moodaa wuxuu soo tusaale soo qaatay ninka hadlaya xogayahay inaan jabay maalin walba intaasoo inanba wax gaari la dhacay iyo wax shil kale ku dhaawacmay iyo noqda dhamaantood adeega caafimaadka wax lagu qabtaa halka ma lagu qabtaa adeega caafimaadkana runtii dawladda dhexeena si wanaagsan wax weyn bay ka qabatay dawladda hoosena iyaduna doorkoodii bay ka qaadatay marka waxa la moodaa ninka xogayaha in uu maxaan ku raahday war suuqiyo suuqa laga suuqa dad suuqa ka urursaday inuu aan xaqiiqada ku fadhiyay inuu ka hadlayay xogayaha Saacad Ciise Cumar oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay bilowga dekada cusub iyo wararka sheegaya in shaqadii muwaadiniinta ay la wareegeen ajaanib ka yimid dalal shisheeye su'aashaas waxay ku saabsan tahay dhawaan waxa la dhagax dhigay ballaarinta dekada magaalada Berbera 400 mitir baa lagu dareeyaa baa la yiri balbirawga marka laga yimaado xogayahaba hadal hayn badan baa ka dhalatay dadka qaar waxay leeyihiin dekadii waa la bilaabay sida mas'uuliyiinta gacanta ku haya dadka kale waxa weeye dad dhalilaya qaabka DB wal waxa wada waxay leeyihiin waxba ma bilaabin wax weeye indha sarcaad baa la wadaa sidoo kale waxa leeyahay shirkadii maxay tahay
shirkadda Balabla waxay ku talagashay inay shaqaale ajaaniba ka doorbido muwaadiniinta shaqada ay qabanayso oo kale gobol ahaan maxaa arrinkaasi kala socotaan horta marka hore waa mahadsantihiin waa su'aal fiican waxaan ii sheegayaa in xukuumadda Soomaaliland ee kulmiyay ee ka horeysay xukuumadan iyana kulmiyay imika talada haysa inay heshiis caalami ah gashay heshiiska caalamiga ah oo ay shirkadda Dubai World kula gashay in ay dekada Berbera maamusho sidoo kalena ay dekad cusub oo qayb ka noqonaysa dekada balaarinta gida ay heshiis kula gasho shaqaalaha ka hawlgalayana wuxuu noqon doonaa xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadaas waxay ku heshiiyeen wixii muwaadinku qaban karayo in aan qof xagga looga keenin marka waa heshiis caalami ah ma aha wax yar oo turunturoha maalin meel wax ka soo baxayaan maslax salabaaside telefishinka Ariel Berbera